ururkani sida la sheegay waxa uu ka shaqayn doonaa arrimaha samafalka iyagoo xooga saari doona taakulaynta hooyada iyo dhallaanka. Gudoomiyaha ururkan oo halkaasi ka hadashay ayaa waxa hadaladeedii ka mid ahaa marka halaha intaas oo haween ah oo isbiirsaday ayaa waxay sameeyeen ururkan samafalka ah ee Soomaaliyeed ee lagu caawinayo Soomaali weyn dhallaankooda iyo haweenkooda. caawa farxadeena lama soo koobi karo. waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad labeentii London ayaa caawa halkan fadhisa. aad iyo aad ayaad u wada mahadsantihiin walaalayaal. waxa farxad noo ah in caawa halkan ku soo dhaweyno organization kan oo lagu daahfurayo oo ay hogaanna ka tahay qaybna ka tahay ayna nooga timid wadanka Netherland ee Holland. waa marwo aad shacabka Soomaaliyeed mug iyo culays iyo qiimo ugu leh. waxaan ku leenahay marwo ahlan wa sahlan soo dhawow. waxaan ku gelinaynaa ubaxan waa magacaygu waa Xamdi Xasan Ugaas Faracade. waxaan ka imid wadanka Holland. waxaan u imid daahfurka ururkan sharafta badan qiimaha leh ee Daynila International Women and Children Organization. waxaan ka ahay ururka qayb. waxaan u qaabilsanahay xiriirka caalamiga ah. marka soo dhawaada idin leeyahay. Assalaamu calaykum. waxaad leeyahay ilaahay idin la garab gala ma aragtay waa xil culus xilkaas aad maanta qaadeen anoo ku hadlaya magaca waliba aad ka soo jeedaan Daynila iyo Galguduud waa mataano baliyaan leenahay waa ka qayb galaynaa hiiliyo hoona waa la garab taaganahay gudoomiye Nadiifo iyo Xamdi waan soo dhaweynaynaa hadda anoo ku hadlaya magaca jaaliyadda West London ee Soomaaliyeed iga fiisha garab iyo gaashaan wala mahadsantii magaca ama ururka magaca uu sito waa magaca runtii degmo kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir oo aad caan u ah oo garanaysaan. runtii anigu waxa aad iyo aad aan u soo dhaweynayaa caawa ayadoo waliba gabar Soomaaliyeed oo runtii aad loo yaqaano Xamdi Xasan Ugaas Faracade ay runtii ay caawa halkan ka soo qayb gashay idoo safar dheer u soo gashay daahfurka munaasabadan quruxda badan oo ka timid dalka Holland. ujeedka arrinkan laga lahaana uu yahay daahfurid lagu daahfuro magaalada London. waxaad moodaa arrintan in lagu maamuusay London in lagu maamuusay annaga reer London haddaana runtii sharaf bay noo tahay karaam ay noo tahay. waxa iyaguna khadka teleefanka kaga qayb galay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ururka oo kala jooga wadamo kala duwan. bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Casha Cabdullaahi Xalane ahna wakiilka dhaqaalaha Sweden. waxaan halkan ka salaamayaa madaxda sharafta leh. halkan waxaan uga hambalyeeynayaa maanta caleemasaarka xafladda caleemasaarka gudoomiyahana Nadiifo Cali Horyare iyo ururkeena Daynila International Women Organization. hambalyo Nadiifo hambalyo shaqo wanaagsan gudoomiye waa ku salaanay salaan diiran baa ku soo diraya cali macaynta waaye. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxayna soo wacayso oo inii hambalyeynayso oo maxay ahayd magacaabidda ururka lagu magacaabo International Daynila Women walaashin Xaliimo Xaaji Raage. Maxamed Tricon Cable TV London.